السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتا aynu jecelnahay oo kusoo dhawaada channelkeena ka xiro fakhriga. Haduu eebaweyneed maanta waxaan idin soo gudbin doonaa cashirkeena tixanaha noo ahaa aan kaga hadlaynay galayda. Maanta waxaan idin soo gudbin doonaa qaybteeni labaad. Hadaba daawade ha noqon mid looga sheekeeyo ee noqon mid ka sheekeeya. Hanaga hilmaamin share-ta, comment-iga, subscribe-ka iyo laaga. Waxay inoo tahay dhiirigelin, adiguna waxaan rajaynaynaa inaad wax badan naga faa'iido. Hadaba daawade maanta waxaan idin soo gudbin doonaa qaybteeni labaad ee aan kaga hadlaynay galayda. Galayda asal ahaan meesha ay ka soo jeedo iyo qaybaha loo qaybiyo galayda ayaan maanta ka hadli doonaa. Galayda asal ahaan waxay ka soo jeedaa dalka Mexico. Wadanka labaad ee galayda ugu badan ee lagu beerto waxaa ka mid ah Soomaaliya. Dalka ugu badan ee soo saara galayda waxaa ka mid ah Soomaaliya, USA, Shiinaha, Brazil, India, iyo Argentine. Hadaba qaybaha loo qaybiyo galayda waxaa jirto ilaa 7 qaybood ee loo qaybiyo galayda. Qaybta koowaad waxaa ka mid ah Fino corn oo loo yaqaan scientific name-keeda ZMS indurata. Denta corn oo scientific name-keedu uu yahay CMS indenta. Pepper corn oo scientific name-keedu uu yahay ZMS everta. Sweet corn oo scientific name-keedu uu yahay ZMS secret. Flower corn oo scientific name-keedu uu yahay ZMS amylose. Bud corn oo scientific name-keedu uu yahay ZMS tunocata. Waxed corn oo scientific name-keedu uu yahay ZMS certina. Filter corn oo scientific name-keedu uu yahay ZMS indurata waa galayda dhowr midab oo kala duwan leh sida cadaan, madow, jaale, kafee iyo gaduud oo hal sabuul ku wada yaala. ZMS-ka oo indurata waxaa loo isticmaalaa maraq ahaan. Denta corn oo scientific name-keedu uu yahay ZMS indenta waa galayda leh dhowr midab oo kala duwan sida kafee iyo cadaan, taasoo ay sabuulo kala duwan ku kala yaalaan. ZMS-ka oo indurata waxaa inta badan loo isticmaalaa cambuul ahaan. Waxaa jirto qayb kale oo pepper corn oo scientific name-keedu uu yahay ZMS inverta. Waa galay hal karar leh sida galayda jaala. Inta badan iyada looma kariyo sababtoo ah waxaa ku jira qaraar yar. Waxaa loo isticmaalaa in loo adeegsado daanga ahaan. Sweet corn oo scientific name-kiisu uu yahay ZMS secret waa galay hal midab leh, midabkeeduna waa jaale xigeen. Inta badan galaydan midab jaale xigeenka ah waxaa loo isticmaalaa in wax lagu macaaneysto iyo in la shiido kadibna wax lagu adkeeyo. Waxay qani ku tahay macaanka. Flower corn seed oo scientific name-kiisu yahay ZMS waa galay leh hal midabkaasoo ah cadaan. Inta badan waxaa loo isticmaalaa warshadaha iyada oo lagu soo saarayo bur. Waxay qani ku tahay in wax lagu adkeeyo. Sida kale galayda cad waxay si fudud loogu bedeli karaa bur ahaan. Waxaa kaloo jirto waxed corn oo ZMS certina waa galay laba midab oo kala duwan leh, kafee iyo cadaan oo hal sabuul ku wada yaala. Waxaa lagu soo saaraa tubaakada. Waxaa loo isticmaalaa warshadaha. Waxaa kaloo jirto bud corn oo ZMS tunocata waa galay hal midab leh. Waxay leedahay xaad fara badan oo iniinyada korkeeda ku taala. Inta badan iyada ma ahan commercial. Intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa qaybtan kaga hadlaynay
galeyda qaybaheeda iyo asal ahaan meesha ay ka soo jeedo. intaa mid lacayna ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo amaano Allah. Hanaga hilmaamin share-ta, comment-iga iyo subscribe-ka waxay inoo tahay dhiirigelin. waxaan rajeynayaa in aad wax badan ka faa'iido insha Allah. Salaamu calaykum.